hadda adigu inta iska fadhiisatood kici weydo aad tasbiixsan karto in baa kooma ku jirtoon tasbiixsan karin berri markaad kooma gasho ama carabka uu nabar kaa gaadho baa inaad caafimaad qabto tasbiixsan karta aad xasuusan caafimaadka iyo sixadu marba in bay joogtaa in kasta oo haysatabana waa nicmo ilaahay oo wax badan qabsan karto adduunka hadaadan markaa qaban karinna aakhiradii wax qabsan kartaa jira walaalka qofka muslimkii waqtiga noloshu daqiiqadii iyo sakanadu qiimay la leeyihiin maxay u leeyihiin hadii wa dunidan aan tagayo hal daqiiqa hadii la isiiyo oo 100 jeer tasbiixsado ajir weyn oo bayna samaa'i wal ardi buuxiya oo aakhira zaad in noqdan la tagaya sadarteed daqiiqad kastaay aniga raasamaal iyo tabac weyn baan tabcan karaa ma tabcanaa waqtiga firaaqadan hayno in telefoon baad ku jirtaa in TV baad daawanaysaa in fadhi ku dir baad fadhidaa in jirdiinka taagan tahay in waxaad ku jirtaa website-aad akhriyaysaa maalintii in misaal quraan akhriday juska dhib ku ah juska in misaal lagu akhriyaa 10 daqiiqo telefoonka fadhi ku dir misu ku jira 10 saacadood 10 saacadood markuu sii seexanayana bustaahu huwanay hoostiisu ka seefeeriyaa habeenkii markuu isgadiyana intuusan mar labaad seexan uu shiraayo uu feeriyaa laakiin ihtimaamkaad garanaysaane marka laga hadlayo nabiga calaysay salaam qofkii manta habeenkii isgadiya oo adkaarta qaarkood akhriya naar baa laga xoreyn baa leeyahay waxa laga inaad tiraado qof hurdo isgadiya sabu istighfar xasuusan oo sabu telefoon ku xasuustay himmadii iyo qalbigaaga uu ku weynaa telefoonkaad ku xasuusatay hastay istighfaartu ku weyntahay waa xasuusan istighfaartada wixii kugu weey waa xasuusataa soomada arag hadii qof xanuunsan iyo ilmo xanuunsan arag jiifto marka isrogto waad fiirin qandhadiisa taaban sababtoo ah hammi buu kugu hayay markaad seexanaysay inaad ka warqabto ninkay salaad iyo dhikri iyo quraan iyo tasbiix iyo istighfaar hammi weyn ku hayaan habeenkii markuu isrogo astaghfirullah subhanallah inuu yiraahday uu xasuusan laakiin hadayna wax weyn kugu haynin dee xasuusan mays inta nolosheena kamidaadna ku garan war waqtigii buu nabigu leeyahay ka faa'iideysta marka la waa nabigu lahaa 5 ku qaban doonto 5ta kale uga faa'iideyso caafimaadkaaga ka faa'iideysa intaadan xanuunsan firaaqada marka tahayna ka faa'iideysa intaadan mashquulin aqoon uga faa'iideysa waxbarasho uga faa'iideysa maxaan qabtaa buu ku leeyahay bal yaraa wuxuu leeyahay maxaan qabtaa oo adduunka imisaa ku taala aakhirada imisaa ku taala noloshan mawjadaha ee mashaakilka badan ee hadda fooda saartay soo zaadiya sahay aqoona zaadiya sahay alla ka cabsiya zaadiya sahay khibrad iyo waxbarasho soo kaagama baahna mawjadaha nolosheed galayso ee intii horena wada burburisay intii muddo ku soo jirtay kuwa yeeshay jirkoodii mawjadahan say madbadu u dhacaysay doon alwaax u fuqday ba wada noqdeen anna taam ba alwaax iyo cadcad ku kala fiiqi doonta khibrad baad u baahan tahay aqoon baad u baahan tahay ilmaheeni fasaxiyay ku jiraan macallin hadaad ahayd mashquulsan maanta fasax baad tahay arday hadaad ahayd iskuul subax kala hay hadda waad joogtaa aakhiri adduun maxaad kasbatay waqtigaaga khayr ma gelisay fasaxyaa lagu wada jiraa jumciya khamiis ba qaar fasaxiyiin jumciya khamiis xageed gelisay ciyaar iyo maala yacni iyo xan iyo dambi baan wada gelinaa bal makhaayadaha casarkii tag meel la kala fariista malaha bal dhaga maxaa lagu mashquulsan yahay badankood dambi baa lagu jiraa maysa aakhira sugaysa meydka marka la aasayo baa dambigi lagu sii jiraa kii aan hadda ku tukanayna kuma waana qaadano war ilaahaynu ka cabsano war waqtiga aan ka faa'iideysano war intaan caafimaad qabno in xoog galeenahay aakhira aan wax geysano adduunkeenu ummadii iyo aadamaha ilaahay wax taraya aan ka shaqeyno iyagana adduunkana nacfi buu noqon aakhirana ajir iyo thawaab buu noqon waqtiga aan dhuminaynana aan ka dayno inaad u timaado qof oo ku yimaado ama ku yimaado oo ku yiraahdo warniyo kale waqtigaan isku soo dhaafina bunoodi baan aadayna waqti isku soo dhaafino barnaamij aan daawana waqti aan isku dhaafino makhaayadaan fadhi ku dir fariisana muxuu ka hadlayaa kaliya aan waqtiga is dhaafino waqtigii baa culays noqday wuxuu noqday dib la is dhaafinayo isaga laftiisa mushkilad in la isdhaafiyo balaayo in laga takhaluso u baahan noqday wala maxay ka dhigan tahay salaadii cibaadadiina culeyskaan iska ridno ku leeyahay
salaada culayskeedana aan iska ridno waktigana aan isdhaafinno waa cod dhib aad isdhaafinayso ma ahayn sida saxda waxay ahayd noloshaaduba joogitaanka dunidu waa waktigaasoo la isku dardaray oo yaryarka ah intaa la isku dardaray unbaa cimriga aad joogta noqotay war waktigeenna aynu cibaado gelinno aynu tasbiix gelinno aynu cilmi iyo waxbarasho gelinno aynu wax addoommada anfaca gelinno intaa haddaan gelin weyno waxa dembiga ah iyo waxa addoommada ilaahay dhibaya aynu ka dayno oo intaa cidla iska aad haddaad wakhtigaagii wax khayrood gelisa weydo gurigaaga ku ekow meel dur cidla iska aad intaad dad dhibi lahayd oo dembaabi lahayd ama dad aad wakhtigoodii dhaafin lahayd ood ka mashquulin lahayd keligaa meel cidla iska tag oo dhibkaaga inaad aadamaha kala fogaato sadaqatu muu nabigu ku tabacsan intaa sadaqa ka dhigo ilahay khayrka hayna waafajiyo ku wakhtigooda iyo cimrigooda khayrka uga faa'iidaysta wanaaggana sameeyana allah inaga dhigo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اختم الصالحات أعمالنا